bulshadan maanta joogtana waxaad moodaa inta badan inta ehelka u ah hadallada aadka u qaribeen dadka raalli gelina runtii wax wanaagsan haddii la sheego dadku kuma farxaan inta badan laakiin ilaahay xagga wanaagga ha inoo badiyo inta wanaagga ehelka u ahna ilaahay hana waafajiyo waxaan u malaynayaa hawshan dee kulli salaadiin ahaan hawsha ugu weyn ee aynu maanta Soomaaliland ay halka ku soo gaadhay waa salaadiinta haddayna salaadiintaasi dhaqanka sooban ee ilaahay waafajiyo ayna lahayn sida muqdisho baynu ahaan lahayn saas baynu ahaan lahayn walaalahayna jaarku isku dilayaan marka inanku odayga dhaafo waxba kala socon maayaan inanku hadduu odayga maqli waayo wax soconaya ma jiro wax kastoo khaldama siyaasadda ugu weyn haddii wax kasta ka khaldamaan cid dib loogu noqonayo waa salaadiinta wasiirka wax kale iska day wasiirka haddii wax laga dareemo ka loogu noqonayo waa sudaanka maadaama tiin furihii bulshada ilaahay ana ukiina suraano garabkiina taaganahay gacmiyaad ku shaqaysanaysan iyo baalashaad ku duulaysan ma nahay wixii tale iyo tusaale ee naga khaldana inaan tursan diyaar baan u nahay inta hadallada aan deelqaafka ah meelaha kalena ina toosisaan ee waajib baa idinka saar sidaas doon ka sheegay marka qofkii wax qabanaya inta wanaagsan la sheeg waayo inta khariban uu la sheego waa mushkilad bay noqonaysaa qofka wax sheegay laftigiisa ceeb ku tahay oo la oranayaa warta aad wax xun ba sheegtaa wax wanaagsan ma meena ka maqlay marka in la iswaaniyo qofka xadana la toosiyo qofka toosana la garab galo ilaa madaxweynaha hadduu maanta wax ku khaldan maalmo dhaweed halkana waxa meediyaha la sadex mariyay meeyarkii boorama hor istaagay golihii caynka war gole la hor istaagay jiray gole sharci darro halkan kama ogolin imkan ku celinaynaa oo ma ogolin wax sharci darro ah oo nabadgelyada gobolka khalkhalinaya diyaar uma nihin laakiin cid reernimo lagu istaagay cid laga hor yimayo waxaas ma jiraan cid kasta oo wax toosinaysa oo dariiq sax ah u maraysa waan soo dhaweynaa ilaahay dhaado aad iyo aad baa masan tahay waa degmada salaadinta kulay gobol iyo degmo ma kala leh meel kasta ina ka taliyaan bulshadii baa joogtaa suldaan cabdi baa tagay ila ceer gaabo suldaan maxamed baa iman ila saylac marka waxa lama kala salaadintu waa isku furayin waxa laga yaabaa in maamulka dawladda xoogaa kala qoqomane salaadintu waa isku furan wadanku meel kasta tagaan qof Soomaali joogo waa u furan yahay wadanku marka waxaan leeyahay ilaahay aad ku asturo soo dhaweynta wanaagsan aan ku sameeyay kulay ismariin aad baan soo dhaweysanay xogaa qarba nagu noqotay ee tii ka weynid waan soo socotaa insha Allah aad iyo aad baan u santahay shirkuna saas u noqonayay assalamu alaykum wa rahmatullahi